dad badan waxa arkay dhahay jokarey ma uura yeelatay baba horta awlaad ilaaha hayo yes waa xanuunsaday waliba xanuunkayga alxamdulillah rabbil caalamiin marka waxaan ka hadlayaa hadda arrin baan ka hadlayaa arrinta ka hadlay waxay tahay dhalinyaro badan oo youtuber ah jirta oo soo gashay youtube-ka oo wiilal oo badan wiilasha Soomaaliyeed waan salaamayaa boqolkiiba annaga gabdhaha hadaan waanu isdagaalnaa waanu iska hor imaanaa waa is aflagaadeynaa kuusay kiiray aan isku caynaa badana naagaha markay caynayaan waxay amaanaan niman waxay dhahan hiblaayo hebela ku nacay hiblaayo hebela ka tagay hiblaayo hebela ka daba ordaa hiblaayo ninka waa ku qafiiftay hiblaayo inta ka baxday waxaas isku aflagaadeynaa hadaan gabdhanahay waano damiir xumo because waxay damiir xumo noogu tahay hadda idin sheegaya because damiir xumo waliba waxay noo tahay aan waligeed la arag oo musiibo qaranay noo tahay because wax kale aan isku cayna maanaan waayin waa inaan rag isku cayna waa laga fiican yahay always marka maadaama hiblaayo hebela ku nacay hiblaayo hebela saana aan isku cayna annagii ragga fiiriya raggu bil cagsigeena maxay isku caayaan raggu markay ismaagayaan maxay isku maagaan si badan kan iska fure raggu waxay isku maagaan markay ismaagayaan naag oo kala u hadashay sidii naag foolanaysa oo iloosha dhowdahay sidii naagihiiba igu calaacalaysaa habar camal aniga ha ila sheekaysan habar fadhidaa tahay sidii naagihiiba hebelo ila hadashay dumarka waxa isku caay adigu cayday annagina si aflagaadiyaan raggu ayagu inay caayaan bay moodaan laakiin annagina caayaan marka waxaan u sheegayaa nimankan youtube-ka soo galo kala qaabka daran leh ha ku soo halqabsanina dumar hadda waa caafimaad qabaa maanta iyo shalay dad badan waxa arkay dhahay jokarey ma uura yeelatay baba horta awlaad ilaaha hayo laakiin aniga hadda waxaan isku ogahay ma jirto خلاص كقاطع maxaa kale oo ku soo haray arrin kale aan soo galay maanta inaan ka hadlo arrintaas ma aha part 2 gaas waa stay tuned part 2 gaas stay tuned in kasta arkay Facebook oo cararayso part 2 hadda ani markade part 1 iyo part 2 wallahi arrin ka xanaaq qarba mar waxaan u sheegayaa wiilashiinan kala lugaha dhuudhuuban leh oo mid walba qaab kale u dhuuban yahay fadlan hadda kala baqaysaan kala aamusa hadda is caayaysaana si raganimo leh oo xushmad la isku caaya annaga hanagu soo hadal qabsanina hadihina sida naagihiya u hadle naag foolatay amal baad u ilooday wanaagan ku sameeyay inta horta hooy way ku dhashay hadda wiil tahay wiilkaagan lugaha dhoodhooban iyo wiilkaagan lugaha balbalaaran oo kulligiin meesha soo wada fadhidaan waxa idin sheegay horta hooy way idin dhashay rag waaweyn baa tihiin وانا كو دخدا gabdhana waa dhasheen kulligiintii 40 jiraatiin awlaad waa leedihiin fadlan gabdhaha nabad galiya maxaad dumarka hooyooyinka u haysataan afar saac ugu haysaan ha hebla islaam baad u hadal egtahay islaam sideeda daas edabtaro I don't like that by the way dagaal yar oo goosaan galay in nimankaas ma jeedaan baawurkayga inay too garayaan ay rabeen injeedin walaal marayaan sababtana waxay tahay baarkimada ma aragtay aan isku heestaa parkingkiga ana waxa la rabaa in la iga qaado and I have two parking one is underground parking one is outside so ku adkaysta anigana waraaqiya u soo bixiya waxaan ku dhahay saaxiib parkingana na iska leh aad iska dhiga I pay every month ninka waxa dhahay okay then wuu dhaqaaqay sometimes happen to me maalin dhaweydna waxa igu dhacday gurigayga wuxuu ka xirmay baaga because aniga badanaa gudaha ma isticmaalo albaab banaan ku jeegaan la albaabkaas iska use garaya maadaama fiisidkayga waxaas badan tahay then waxa dhacday albaabka oo banaanka ka soo gudaha ka soo galay markaas waxaan sameeyay marka albaabkayga anoo furanaya naaga ii ma taxay ku tiri maintenance-ga ma tahay no aan ku dhahay maintenance-ga ma yihiin kaas waxay ku tiri you don't live here san ku I live here kaas waxay ku tiri maya waxa degan islaana inta degan kaas ku islaan madow ma degan meeshan islaan madow degan ay ku tiri there is African American lady lives here san ku no ana degan aan ku dhahay I've been living here 6 months san ku dhahay markaas waxay ku tiri oh no security-ga u wacday anoo gurigayga iska galay
suuga dabka iska saartay hilib iyo waxaasan saartay dabka muusiga iska shitay security-ga uu wacday waa liigu soo garaacay waaya waxaan security-ga yaa kugu wacay waa furay irida baqbaqa ka fiiray security-ga arkay I was surprised waa furay markaas waxay igu dhaheen hay assalaamu calaykum wa calaykum assalaam aan dhahay waxaan ku weydiinaynaa do you live here hay ku dhahay I live here bas marka way igu soo garaaceen waa ka furay gabadha oo waxa isla socdo marka gabar cadaan gabar oo madow iyo cadaan iska dhaleen adiga mixed iyo waxa isla socdo wiil oo cadaan oo wiilka marka waa wiilka liiska iga saxiixay waay bas like wuu iloobay moogtahay he forget about it so uu igu soo garaacay dhag waa furay markaan furay wuxuu dhahay oh hi I told you live second floor aan ku dhahay no I live here intaan deganahay aan ku dhahay markaas wuxuu igu dhahay oh raali noqo I'm sorry misunderstanding dhacay maamada inta deganaa jirtay gabadhan fareen waxaan ku dhahay hadee fareen ahaayeen 6 bilood ee maamadaas ka hor guurtay ee ku ogaan weysaan ku dhahay iyada mee waalan tahay sida maya waa ka xunahay raali noqo ina irida privacy-gaaga soo koros gareyno irida kugu soo garaacno naga raali laho okay aan ku dhahay bas sidii waxyaabo badan oo yaab la guriga iga soo gaaray wallahi billaah inta ku soo koobi karin waxa kamid ah hadda ka horne maalin aniga oo baabuurkayga soo dagaynina wuxuu ugu dhahay do you live here hayan ku dhahay waa security marka ninka xagee degantahay san ku dhahay kor deganahay markaas wuxuu ugu dhahay underground kan ku jirno kor deganahay markaan leeyahay first floor ka wada markaas wuxuu ugu dhahay show me where you live warani tuk ma way because I really live here you don't trust me may ugu dhahay waxaan rabaa inaa itustid meesha aad degantahay I just want to be safe gaariyaasha la toogareynooya apartmentigaaga iyo barkigaaga inay isleeyna ogaano way soo daba galay ilaa gurigayga aan ka galay waa kan aan ku dhahay intaa ku deganahay okay ugu dhahay have a good day ma'am bye oo iga tagay haddana aniga gaarigayga iskaga dhex jiro oo parkingkayga dhex fadhiya I paid ana iska leh parkingkayga anoo dhex fadhiya ani aan baxsado oo aniga bil kasta aan dhiibto nin intuu igu imaado wuxuu igu dhahay baabuurta toogareynooyaa adi ma iskale parkingkan kaasaan ku yiraahdaa ana iskale wiil madow aha marka wuu igu ciyaara marka wuxuu igu dhahay dhageyso 3 sano ana parkingkan lahaa tuuganimadaada anigoo taagan leedahay parkingkan ana iskale miya waxaan soo xasuustay markuu saas igu dhahay waxaan soo xasuustay ma taqaanaa ninkii oo gaariga jabsanayay inta loogu imaado dhahay waa yaa gaariga maxaad u jabsanaysaa markaas wuxuu yiri de anaga leedahay salgiiro oo gaarigayga leedahay sheekadiisa xasuusi wuxuu igu yiri parkingka way u taagantay saan ku yiri ana iskale soo ugu dhaay ma parkingkayga leedahay 3 sano laha saan ku yiri wow this is my parking waxa uu soo saaray waraaqii uu fiiriyay ugu dhaay garal oo intee degantahay halka deganaan ku dhahay hay baa ugu dhaay iga tagay yap ajiib aan dhahay walla ibile dad qurmuune waa gardarami على كل حال أنا sheekada muhiimadeeda aan u soo galay waxay ahayd sida aan idin sheegay nimanka oo youtuberska oo dumarka ku soo halqabsanaya naga joojiya anaga barag kuma soo halqabsano dumarka qaar ka liito dumarka ku soo hadal qabsadana way jiraan laakiin de aniga maxay ahayd heestii muxuu ahaa Qaliif Faarax Xayir garku timo un weeye ha u moodin garashada garku timo weeye ha u moodin garashada ragga inay u gartahay haween guurtiyaa jira waarun haween guurtiyaa jira garku timo un weeye ha u moodin garashada haween guurtiyaa jira laandheeranimo marka ilma adeeryaalo hal kala xishooda ragow marka ilma adeeryaalo aan kala xishoono aan isxushmayno rag iyo dumarba de garku timo un weeye ha u moodin garashada labka inay u gaar tahay haween guurtiyaa jira goobahooda aan la gelin by the way intaana sheekadaas de caafimaadkayga ilaahay baa bixiya aan la gaarin waxaan rabaa arrin idin taabanayaa hees aan sameeyaa jirto la dhaw adigoo gugaas oo oday gabay ciraysta godob intaad galaysaa gabdhahaaga laga goyn ya geedi wuxuu hagaagaa markaad gayi taqaanay gartu waxay hagaagtaa markaad golo ka hadaltee ka gaabsaday waxaa tiri adigoo gugaaso ya heestaasna waa soo socotaa